السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالكن وحين كنت العراري دونا لح قيان oo ka yimaada xubinka taranka haweenka ayaynu insha Allah ku dul cararayna. Waa laga yaabaa in dadka qaar ay yiraahdaan badana waxan lixdan qoyaan ee xubinka taranka dumarka ka imanaya badana ama ay la yaabaanba, laakiin waa kuwa komana haweenkuna si caadi ah u yaqaanaan, raguna qaar kamida lixdan way yaqaanaan, laakiin marka tirada ku la soo wada qaata laga yaabo qofku inuu saso oo yiraahdo ma lix dareere ayaa xubinka taranka haweenka ka soo baxa. Hadaynu dul cararna ama aynu istu taagno waxay kala yihiin lixdani: albawl, almadi, alwadi, almani, hudamatu alfarj iyo haydka. waa lixdaas. bawlka waad garanaysaan waa dareeraha komanka ee caanka ee kaadida aynu naqaano bulshahan ee xubinka taranka ka yimaada. waxa jirta marka kaadida laga yimaado shantan kale qaar baa dadka iskaga qaldama ama ay dadku isku yara qaldaan. haweenka qudhooda qaar baa isku qalda shantan, gaar ahaan markay yaryar yihiin aanay wali waaweynaanin. shantan waxay kala yihiin almadi, waa manida, biyaha manida ee dhalmada ama taranka Ilaahay ugu talagalo ee haweenkana ka yimaada raggana ka yimaada. waxa jira qoyaan kale oo la yiraahdo alwadi oo ku badan ragga, laakiin haweenkuna marmar ay isku arkaan iyaguna oo qofku marka uu hawl badan qabto ama shaqo badan qabto qoyaan ka yimaada ayaa isaguna jira. ragga ayuu laakiin qoyaankaas ku badan yahay. qoyaanka isaguna ka soo baxa xubinka taranka haweenka waa manidu taa waxa la yahay madi, midna waxa la yahay manidu marka waxa weeyaan waa qoyaan ku yimaada dareen haweeneydu marka ay dareenka kacsiga aynu naqaano bulshaan hesho ayay isku aragtaa. raguna wuu isku arkaa. dhalinyarada ayuu ku badan yahay xilliga ay ku jiraan, dareenkoodu badan yahay marka ay kacsadaan ama nin xilliga shukaansiga ha noqoto ama wax kale dareenkeeda kiciyaba ha noqotee xubinka taranka qoyaan yar baa ka soo baxo la yiraahdo mani. waxa kale oo jira isaguna qoyaan kale oo la yiraahdo hudamatu alfarj oo isna xubinka taranku ee haweenku leeyahay. qoyaankaasi waxa weeyaan waxa la yahay qoyaanka xubinka taranka Ilaahay baa ugu talagalay, waa moisture natural oo xubinka taranka dumarka ku jira. midab gooniya buu leeyahay oo cadaan ah ama caano qafiifa camala. urgooniyana wuu leeyahay, marka urtuna way isbedeshaa haddii uu xanuunsado, midabkuna wuu isbedelaa. taana waxa la yiraahdaa waa qoyaanka xubinka taranka oo in badan baa laga hadlaa. waxa kale oo iyaguna jira kacaanka ah ee komanka ah taqaanaan ee caadada ee la yiraahdo haydkuna waxa uu isaguna ka yimaada xubinka taranka haweenka meesha uu ka soo baxo weeye ama waa wadada uu ka soo baxo markii haweeneedu haydka ay hesho uu ka soo baxo. lixda qoyaan ama lixda dareere ayaa waxa ay ka soo baxaan xubinka taranka haweenka. intaas ku soo ururnaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.